Soomaaliya dal weyn bay ahayd oo runtii adduunka iyo Afrika kaalin weyn kaga jirtay oo waxbarasho bilaash bixin jirtay oo adeeg bulsho bilaash bixin jirtay oo hogmuud u ahayd Afrika laakiin waa burburkiina ka soo kabashadiisa bayna ku dheeraatay runtii xilli aan macquul ahayn oo qof kasta oo noolan 1991 2000 oo anigu aan kamid ahaa ma aamineyn 2025 baa wax dhinaanay oo aad weli state building wadaysaan qof aaminsanaa ma jirin ereyga halkan hadda laga sheegay qabyaaladana oo aabba oo weli socda oo hadda social media iyo platform kala sii helay marxuumiintii uu ka sheekeynayay wasiir Faarax ma naqaan anigu qolob waxa dadka la igu sheego waligeena ma arag mana aqaan sidoo uu eegyahay ma aqaan wuxuu ii qabtay ma garanayo haddana maalin walba de magacaas ama magac lamid oo la isku urursaday baa dad lagu diraa dal lagu dulmaad qaran lagu dumiyaa marka in dhalinyarada hadda waxa ku mashquulsan istim uu sameeyo platform ka duwan qofku markuu qabiil ka hadlayo ama qabiil social galay maskaxdiisu dib u socotaa laakiin platform kan oo kale markii la sameeyo saas loo fikiro hore u socota aad baan ugu amaanaynaa runtii aqoon-yahaniinta aasaasay platform ka qiimaha badan aad baan ugu amaanaynaa dawladahaana waanu garab istaagnaa waxaan ku faraxsanahay in saaxiibkay Faarax oo taariikh weyn ku leh waxbarashada oo maalmaha kamida ku dadaali jiray inuu arday ku qanciyo inuu galaaska aado aduu doonayo inuu bulshada arday leeg dhex galo markii burburku dhacay maanta wasaaradda madaxdu waa inuu u baraarugsan yahay bulsho aan wax aqoon inaanay wax muxmina keenin inuu u gudbayo hadda galaaska marba lagu qancinay galaaska soo galay hadda u gudbayo sidoo sheegay 2026 in Soomaaliya waxbarashadeedu laga dhigo mid top ah oo aanay la tartami karin waxbarashooyinka kale ee dhow fursado badan baynu ku weynay waxbarashada hooseysa mudan reer wasiir anigu wasiirka waxaan ahaan jiray shaqadii arrimaha bulshada waxaan ahaan jiray wasiirka ganacsiga dawlado badan baa igu baaqay inaan keeno 5,000 10,000 oo Soomaaliyeed aan ka midacooda ka xusi karo oo wadankooda ka shaqeeya for example khaliijka oo kale inagu waxaan ka tirsanay jaamacadda carabta waxaa ku jirta dabcan heshiiska aan ku jirno in shaqo kasto suuqooda ka badata inagu uu xaq u leeyahay wadanka ku jira jaamacadda carabta oo ku jira laakiin shaqooyin badan ay hayeen tacliinta hooseysa awgeed ayay u qaadan kari waayeen kuwa aan jaamacadda carabta ku jirin u qaateen marka Dr. Saadiya waxay tiri laba wasiir oo fiican baa noo jooga actually saas weeye inuu Faarax soo saaro dad aqoon sare leh anna wax soo saarka ku leeyahay isaguna madax ka yahay soo saarinta bini aadan karaan leh anna bini aadan dalka wax ka soo saara liidka waxaan u ahay dadka wax soo saara oo ah sida kaliya ee dhaqaalaha dalku ku soo kabmi karo marka annaka wasaaradda beer ahaan horta dawlad ahaan hadda waa abaabulana waxaan leenahay Vision 2060 waa Soomaali cagaaran Soomaali barwaaqa Soomaali hormuud waa Afrika adduunkii Norway kamid ahayd 30 sano ka badan soo caawinayna wax ku celisa oo iyadu wax bixisa oo raashin bixisa oo adduunka caawisa oo crisis-ka ka qayb qaata meelaha ay ka dhacaan gacan ka geysata Soomaali cagaaran 2060 waxaan leenahay national transformation plan every 5 years shantii sanaba mar oo lagu gaariyo 2060 oo la jajabiyay si loo gaaro Vision 2060
waxaa center u ah oo bilarka labaad ka ah wax soo saarka dalka in la xoojiyo oo aynu noqono dal isku filan cunto ahaan oo wax tara adduunka iyo dariska sidaas awgeed waxaanu leenahay Center for Innovation and Agro-Entrepreneurship waxaanu wadnaa agriculture-ka Soomaaliya inuu digital noqdo Soomaalidu digitalka waa ku fiican waxaanu ka qaadanaa jaamacadaha uu Faarax soo saaro ardada soo saarta baanu u samaynaa xaruntaas innovationka marka istim inaanu isku shaqo noqono xarunta ay soo booqdaan nala baawar garay hana waa timid hana academy way timid qayb bay ka tahay laakiin teamka oo dhan ay noo keento hodan iyo dadka oo dhan ayaan rajaynaynaa marka dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin nabad hadday helaan waxa kale oo dhan waa dad aad u maskax furan oo halabuur leh oo active ah oo Afrika oo dhan ka muuqda marka hoggaankaasaan hadda wadnaa dawlad ahaan inaanu dalka dejinno nabad keenno sida hadda uu wasiirku sheegayo waxbarasho tayo leh oo bilaabmanaysa 2026 la keeno wax soo saarka dalka la kordhiyo khayraadka la soo saaro marka Soomaalidu meel wanaagsan bay hadda u socotaa aad iyo aad u wanaagsan taas baanu doonaynaa bah cilmiyeedkan istim inay dee xoojiso oo nahagto dawladda hagto institutionskeeda hagto halabuurka hagto platformka ka wasaaradda beeruhu samaystay hana academy iyo meelo badan institution badan ka shaqaynayaan la xoojiyo oo dhalinyarada Soomaaliyeed tayada ku jirta la soo saaro laga dhigo mid Soomaalidu ka faa'iideysato Afrikana ka faa'iideysato marka hambali ayaan leeyahay dadkii aqoon-yahaniintii noo aasaasay Somali STEM Society oo hadda muddo shaqaynaysa ilaa 2017 aad iyo aad baanu idin amaanaynaa dawlad ahaan waxaanu doonaynaa halkan wixii ka soo baxa inaan qaadano oo ku shaqayno insha Allah ta'ala sanadkan halhayskiisa ah harnessing STEM for resilience transformation and innovation is a great maaragtay qodob muhiim ah weey waxaanu idin rajaynaynaa khayr shirka khayr baanu u rajaynaynaa insha Allah ta'ala iyo in talooyin wanaagsan oo dhalinyarada Soomaaliyeed hoggaan u noqda halabuur u noqda shaqo u noqda dalka transformation-ka uu ku jiro lead u noqda inaad keentaan baan rajaynaynaa khayr Allah idin siiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin